عليكم بدلكيبا ملكستو أجوبتاني سوى البعض إنه دقيسان إسامبا كسو دواذا يوتيوب جانل كيغا عاقيار الشو وانيقوها فرحان عبد الله عبدي فرحان عاقيار وإذن للسعود سينية برنامج قارة وانا قلنا سديد أستامود والله وقرطو قفك جعل نفوح جعل نقيل كذا نهدنتي وحشود كذا نحارست هذا الكذا نية سميك القعال كذا naf walba oo dunidana ku nool waxay u baahan tahay inay wax jeclaato ama la jeclaado taasoo nolosha bini'aadamka farxad ku beerta misana isu soo dhaweysa dad adduunkan dacaladiisa ku kala nool haddaba waa maxay jacaylo qofku dhiban jiradaada la ildaran jacaylku waa rabitaan ku beerma qofka waxaana qof kasta oo wax jeclaado lagu gartaa astaamo gaar ah inta badan soo ifbaxa xilli dambe oo jacaylku daara ka dhisto qofka qalbigiisa hase yeeshee qofna ma jecla in si sahlan looga ogaado sirtiisa jacayl wuxuu doonayaa qof walba in sirta asaga kali ay u ahaato haddaba astaamaha lagu garto qofka ku jacayl aad iyo aad ay u fara badan yihiin laakiin waxaan barnaamijkayga ku soo qaadanayaa anigoo ah Farxaan Cagiyare inta aan isla yahay way ugu muhiimsan yihiin astaamaha jacaylka sida la og yahay wajiga iyo xubnaha jirka intooda kale in ay yihiin astaan lagu garan karo waxa dhex yaala qalbiga qofka wax jacayl haddaba naag jacayl nin u qabta ama nin jacayl naag u qaba waxa lagu arkaa astaamahan soo socda oo gaaraya ilaa iyo 8 astaamood haddaba dhageysta haddaad astaamahan isku aragtid ama aad ku aragtid qof ka mid ah asxaabtaada waxaad ogaataa in aad adiga jeceshahay ama asaga uu adiga ku jecel yahay ama uu ku danaynayo xasuusta ayaa loo xanuunka jacaylku xoogu badnaa lambar 1 xusuus badan markasta inaad niyada ku haysid oo aadan ka saari karin oo aad asaga ku mashquulsan tahay lambar 2 inaad ka sheekayso qofka aad jeceshahay mar walba waxa rabtaa inaad xusto magaciisa goob kasta oo aad ku sugan tahay lambar 3 in si xoog ah uu wadnahaaga u shaqeeyo mar kasta oo aad si kadis ah ku aragto qofka aad jeceshahay ama aad danaysid in aad qofkaasi xiriir la wadaagtid lambar 4 marka aad u socoto kulankiisa waxaad dareemaysaa firfircooni siyaada ah balse marka aad ka soo tagaysid waxaad dareemaysaa culays iyo tiraanyo iyo cagajid saa'id ah lambar 5 qofka ku jecel si rasmi ah kuma fiirin karo fiiriska ayuu kugu xadayaa marka aad dhinac kale u jeesatidna si aad ah ayuu ku fiirinayaa ilaa Soomaali baa hore u tiriye indha is jecel isma eegi karaan lambar 6 wax kasto aad nacabtahay waa uu ka fogaanayaa qofka ku jecel adoonan dhihin ka fogow waxaas aniga waan nacbahay lambar 7 waxa uu jecel yahay inuu ku soo dhawaado marka goob ama meel aad ku wada sugan tihiin labadiina lambar 8 dadka adiga aad jeceshahay waa uu jecel yahay inuu ixtiraamo wax aad jeceshahayna waa uu jeclaada waxa la sheegay nin ayaa naag uu jeclaa ayay diris ahaayeen maalin kasta wax ay garaaci jirtay mooye markii uu dhintay ayaa gurigiisa waxa laga soo saaray in ka badan 40 mooye oo uu gurigiisa ku kaydsanayay mid kale ayaa la weydiiyay waxa lagu yiri ka waran qoraxda iftiinkeeda markaas ayuu wuxuu yiri heblaayo ama naagta uu jecel yahay gurigeeda marka ay qabato ayay qoraxda ugu iftiin badan tahay guud ahaan inta waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii gaarka ah ee aan ku eegayay 8 qodob ee qofka ku jecel aad ku garan kartid barnaamijku waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Farxaan Cabdullaahi Cabdi Farxaan Cagiyare YouTube-kaad ka daawaneysayna waa Cagiyare Show fadlan haddaad YouTube-kayga ku cusub tahay fadlan walaal subscribe like share comment ayaan ku weydiisanayaa inta aan barnaamijkan la ayna ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sida iyo